gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax ayaa shir gudoomiyay shirka tubta gobolka Banaadir guddi hoosaadkiisa amniga gobolka kaasi oo ay ka qayb galeen gudoomiyaal degmo iyo agaasimayaasha dowladda hoose xamar. shirka intuu socday ayaa lagu soo bandhigay ajendayaal kala duwan oo quseeya barnaamijyada gobolka Banaadir u diyaariyay dardargelinta xasilloonida caasimadda iyo sidoo kale xoojinta isku xirka shacabka gobolka Banaadir iyo ciidamada ammaanka si loo dardargeliyo qorshayaasha kala duwan ee lagu sugaya xasilloonida caasimadda. gudoomiye Tuulax oo shir gudoominayay barnaamijka tubta guddi hoosaadkiisa amniga ayaa warbixino kala duwan ka dhageystay mas'uuliyiintii ka qayb galeysay shirkaasi. shirka markuu soo ilaaday ayaa waxaa warbaahinta qaranka u faahfaahiyay agaasimaha guud ee amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cali Xasan. waxaan noo shir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda waxaan maanta tubta uga hadalnay ajandahana oo ahaa in la soo bandhigo halbeegyada tubta amniga cadaaladda iyo siyaasadda iyo sidoo kale in la isla garto muxuu ahaay halbeegyada muxuu ahaay timeline-ka ama waqtiyada halbeeg walbaba la fulinayo lagu heshiiyo. waxaa ka soo qayb galay degmooyinkii 17 degmo iyo guud ahaan qaybta amniga iyo siyaasadda oo kulankan maanta ka soo qayb galay. marka kulankan waa kulamada wuxuu ka mid yahay kulamada saddexda ee guddi hoosaadyada la sameeyay oo waxaa jira 3 guddi hoosaad: guddi hoosaadka horumarinta dhaqaalaha iyo howlaha guud, guddi hoosaadka arrimaha bulshada iyo guddi hoosaadka amniga cadaaladda iyo siyaasadda. marka 3 guddi hoosaad markii la isu geeyana waxay noqonayaan tubta gobolka Banaadir. Nuur Saciid, Television TV, magaalada Muqdisho.